السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان wax salaamaya ummadda Soomaaliyeed bacda salaan. Maxay ahayd caqalkii lagu dilay meesha u dhaxaysa ceel buhi iyo maxay ahayd baran. Waxaan uga tacsiideynaya ehelkii iyo qaraabadii ka dhintay. Waxaan leeyahay Ilaahay sabir iyo iimaan hadii siiyo. Maxay ahayd in wax lagu dilay oo la garanayo ilaa hadda ma jirto. Laakiinse waxa la og yahay sida muuqata inay Puntland ka dambeysay CID-da Puntland iyo African kuwa loo yaqaano oo Mareykanka ah oo iskaashanaya inay ninkaas dileen oo diyaaradahaas u dalbadeen. Waxaan leeyahay sabir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo. Waxaan kala oranayaa maxay ahayd maamulka Puntland waa in la weydiiyo arrintaas oo ay keenaan caddeynteeda. waxaana sheegayaan magaalada dhulka la dhex marayo caddeynteeda waa inay keenaan oo bixiyaan. Maxay ahayd ninkani wuxuu ahaa nin maxay ahayd nabadoona oo wax dhibaato iyo wax maxay ahayd qalad toona aan ka muuqanayn oo lagu arkin. Marka waxaan ay sheegayaan ha keenaan caddeynteeda waa in la qaabilaa dowladda maxay ahayd Puntland ba ka dambeysa qaabila u taga caddeynteeda waa inay keenaan waxaan ay sheegayaan. maxay ahayd jawaab degdegana waa inay ka bixiyaan oo ay sheegaan ka waramaan. Wata ilaahay wuxuu xambaarsan yahay daabad buu noqday waxa dhulka la marmaray marka waxaas wax jira weeyaan. Dadka wararka fidinaya wadada dowladda la shaqeeya. Marka waxaan leeyahay maxay ahayd dowladda Puntland waa in la tagaa la weydiiyaa oo taga oo la weydiiyaa ninka waxa lagu dilay Islaameed. maxay ahayd dilna waa ka xuntahay ka badan tahay dil ka badan wax kani ilaahay u naxariisto. laakiin dil xun weey aad iyo aad u xun iyadoo adduunka lagu cadaabay. maxay ahayd kullu nafs daa'iqatul mawt wala dhimanayo laakiin sida loo dilay si loo dul qaadan karana maaha wax lagu dilan lama yaqaan. caddeynteeda waa inay keenaan sidaasaan idinka dalbanaya inay caddeynteeda ka keentaan oo loo tago warkoodana la keenaa waxaan ay sheegayaan. haddii ay leeyihiin maxay ahayd qolyahaas oo la shaqeyn lahaa ama maxay ahayd la shaqeynayay ama la socday qolyahaas way joogaan meel walba maxay ahayd hareerahooda way joogaan dhinacyadooda way joogaan lagu sheegayay. maxay ahayd wax laga qabtayna ma jirto. dagaalka halka ka socdo mooyaane magaalooyinka dhan baa lagu sheegay nimanka ay joogaan. marka hadday saa wuxuu ilaalinayaan oo dabagelayaan waxaanay sheegayaan wax run yihiin ay ku hareerahooda farfadhiyo ama ka wada sida la sheegay qaarkood dowladda ka mid yihiin ay u qaban waayeen wax uga qaban waayeen tallaabo uga qaadi waayeen. intii qof aan shaqaba ku lahayn meel fog jooga ka yimi midda kale maxay ahayd boosaaso waa la joogay ninkan oo shirarka iyo ka qayb galayay boosaaso joogay dhowr goor ku soo noqnoqday yimi hadday wax ku haystaan way markii qabtaan ay qaban waayeen markii ninkaas la sheegay la leeyahay isagu la socday ninkaas ma nin dhulkaas socon karo dhulka maxay ahayd sida la sheegay kuwa ugu sarreeya buu ahaa qolyahaas sawir dhulka marmari karayo socon karayo dhulka ciidamadooda jooga ka buuxay maxay qaban waayeen hadday iyaga maxay ahayd wax ku ogyihiin halkaas. على كل حال ورك عدين تهلا كير سقوا عد ورك تفكرن وين لقى كير أنا منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.